بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داوديال كسو دواada warka habeen ee walwaalti fi qodobada caawa aad ku daawan doontaan waxa kamid ah qarax ka dhacay Muqdisho iyo ciidanka booliska Soomaaliya oo ka warbixiyay madaxweynaha Puntland oo daahfuray imtixaanka shahaadiga ee Puntland madaxweynaha Koonfur Galbeed oo xilka qaadisi magacaabis sameeyay dawladda Soomaaliya oo hawada Soomaaliland ka celisay diyaarad sideeqaad oo laga lahaa dalka Kenya akhbaaraadka caalamka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha guud ee dalka Turkiga oo booqday dalka Liibiya isku soo noqod wanaagsan daawadayaal waa habeenimo Sabtiya taariikhdana ay ku asteysan tahay 4 bisha 7 2020 ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan oo idin si anbaqaada anigoo ah Saacadiye Cali Xaaji Maxamed qarax ka dhacay Muqdisho iyo ciidanka booliska Soomaaliya ayaa ka warbixiyay Sakariye Maxamed Salaad ayaa faahfaahinaya qodobkan gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa saakala la beegsaday waaxda ilaalada canshuuraha bariga oo ku taala ka soo horjeedka dekedda magaalada Muqdisho gaar ahaan dhabarka dambe ee xarunta degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sidiiq Aadan Cali oo qaraxa kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen 5 ruux oo kamid ahaa ciidanka booliska Soomaaliya gaar ahaan ciidanka ilaalinaya xaruntaas oo ah halka uu ka dhacay qaraxan afayeenka ayaana waxa uu sheegay in ciidanka booliska Soomaaliya ay rasaas ku fureen ka hor inta uusan soo gaarin gaariga xarunta ilaalada canshuuraha isla markaana uu geeriyooday oo kaliya qofkii waday gaariga halkaasi isku qarxiyay afayeenka ayaa gaariga qarxay waxa uu ku sheegay in uu ahaa gaari seerafo madow kaas oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa qasaaraha ka dhashay qaraxan ayaana waxa uu ahaa mid aad u xoogan walow ilaa hadda aan la ogeyn tirada rasmiga ee wax ku noqotay marka laga reebo tirada uu sheegay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya inuu ku qarxo laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha magaalada Muqdisho ciidanka booliska Soomaaliyeed oo barta waardiye ka hayay ayaa si feejigan uga hortagay gaarigii waxa laga badbaadiyay inuu san gaarin goobta asagana wixii uu ku soo talagalay uu san gaarin dantuu lahaaba kala haadee gaarigii wuxuu ku qarxay sida aragtaan darbigaas mana gaarin goobtii laanta ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha oo isaga taargad u ahayd sababtaasna waxay ku timid ciidanka oo feejignaa isla markaana ka hortagay inuu wax qasaare ah gaarsiiyo waxa falilaha alxamdu ilaahi ayaa ku mahadsan inaysan jirin wax qasaare ah oo dad shacab soo gaaray iyo qasaare inta ka badan oo meesha ka dhashay kaliya waxa dhaawac soo gaaray 4 askari oo ciidanka booliska Soomaaliyeed kana tirsan laanta isla markaana ka hortagay qaraxaas inuu gaaro goobtii loo waday 4 askari dhaawacyadoodu waa fudud yihiin hadda waxa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka dibna waxaan ka ogaanay inuu askari kala jiray oo isla markii loo qaaday goobaha caafimaadka sidaas daraadeed 5 askari ayaa wax dhaawac ah ay ka soo gaareen ma jiraan wax qasaare ah inta ka badan qasaare naf iyo maal laho kale ta muusan geysan oo ka badan dhaawacaas cid kale oo ciidanka ahayn waxba kuma gaarin waxa laga hortagay inuu gaaro goobtii uu socday ilaahay ayaa ku mahadsan wax su'aalo ma jiraan aad u mahadsantiin assalaamu calaykum wixii soo kordha baaris baa socota ayadoo faahfaahsan meesha uu ka yimid sida uu ahaa meesha ka siin doonaa laakiin waxa idin sheegi karnaa gaarigaas wuxuu ahaa gaari saaruf ah oo madow ah aad u mahadsantiin qaraxan wuxuu dhacay saaka aroornimadii hore ciidamada dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in ay ka hortageen isku day qarax oo gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo halkan soo galay halkan iga dambaysa waa laanta canshuuraha ee dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba ahaatee qaraxan ayaa waxa uu soo aadayaa xilli magaalada Muqdisho ay tahay mid maalmihii ugu dambeeyay marti gelinaysay maalmaha xurriyadda oo ay wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho ay yihiin kuwa wada xiran madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa daahfuray imtixaanka shahaadiga ee Puntland Nuuno Xuseen Sheekh ayaa ka waramaya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa daafuray imtixaanaadka dugsiga sare ee fasalka 8aad ee Puntland oo sanadka ay u fariisanayaan 16500 arday maamulka waxa ay xoojiyeen feejignaanta caafimaad ee ardayda iyadoo maanka lagu hayo xaaladda COVID-19 wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka ayaana ka wada shaqeeyay in la raaco talaabooyinka caafimaadka sida kala fogaanshaha adeegsiga qalabka ka hortagga COVID-19 iyo la socodka heerkulka qandhada ardayda macallimiinta iyo howlwadeennada kale imtixaanaadka ka shaqeynaya madaxweynaha ayaa imtixaanaadka sanadka ku daafuray iskuulka Cumar Samatar ee Gaalkacyo halkaasi oo ay saaka imtixaanaadka ku galeen 592 arday oo qayb ka ah 4138 oo imtixaanka ku galaya guud ahaan gobolka Mudug
ardayda imtixaanaadka loo daafuray guud ahaan Puntland waxay gaarayaan 16,500 oo arday 447 arday oo ka mid ah ayaa dugsiga sare ah halka 11,350 arday ay u fariisanayaan imtixaanaadka fasalka 8aad madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa hambalyo iyo dardaaran la wadaagay ardayda isagoo u rajeeyay guul iyo in alla u fududeeyo imtixaanaadka runtii waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta ay tahay maalintii u horeysay laguna daahfurayo imtixaanada fasalada 12aad iyo 8aad ee Puntland oo ay nasiib u heshay in aan ka furno magaalada Gaalkacyo gaar ahaan iskuulka Cumar Samatar runtii waxay tahay farxad gaar ah maadaama iskuulkan uu yahay iskuulada Puntland ugu caansan ama aan filayo iskuulka Puntland secondary ugu horeeyay inuu yahay marka wuxuu leeyahay astaan gaar ah iyo fursad gaar ah oo ardada dhigata Cumar Samatar ay maanta heleen waan garan karaa muddadii lagu jiray COVID-19 inuu wax badan xanibay duruustii ardadu ay qaadan lahaayeen waxaase sidoo kale ku faraxsanahay Puntland inay kaalinta koowaad ka gashay la tacaalidda ardadooda oo barnaamijka online-ka ah ama telefaaska ah ee sida tooska ah ardadu uga qaadanayeen imtixaanaadka casharada ay ugu horeeyeen dhammaan dadka Soomaaliyeed sida warbixinta aan ku helay xataa ardada Soomaaliyeed ee kiilka joogta fursadahan oo kale ma aysan helin markii ay waxaan u dhaceen laakiin Puntland runtii wasaaradda dadaal badan bay muujisay aad u mahadsantihiin waan ku faraxsanahay inaan igala soo qayb galay guul baan rajeynayaa saaka hadii Ilaahay idmo iyo ayaamaha u socdo imtixaanka daafurka imtixaanaadka waxaa madaxweynaha ku wehelinayay xubnaha golaha wasiirada oo ay ugu horeeyaan mas'uuliyiinta waxbarashada maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo shalay ay ahayd markii wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya war ka soo baxay lagu sheegay in 11 iyo 18 bishan la kala geli doono imtixaanaadka shahaadiga iyadoo 11 bishan ay u fadhiisanayaan fasalka 8aad ee dugsiga dhexe halka 18 bishan ay u fadhiisanayaan ardayda fasalka 12aad ee dugsiga sare sanadii hore ayaa isqabqabsi xoogan waxa uu ka dhexdhacay dawladda federaalka iyo sidoo kale Puntland kaasi oo ku aadanaa arrimaha imtixaanaadka ardayda waxaana gabi ahaan ardaydii imtixaanaadka ay ka qaaday Puntland lagu xujeeyay in ay imtixaan kale dib u galaan si ay u gudoomaan shahaadada dugsiga sare ee dawladda federaalka Soomaaliya Puntland ayaa waxay ku doodaa inay u madax bannaan tahay qaadida imtixaanaadka ardaydooda taas oo ay ku tilmaameen in nidaamka federaalka uu dhigayo inay u madax bannaan yihiin arrimaha gudaha imtixaanaadka ardaydana ay ka arrinsanayaan iyagoo kaliya madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyay golaha wasiirada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada Ugaas Xasan Cabdi Maxamed wasiirkan ayaa ka mid ahaa wasiiradii ka soo shaqeeyay tan iyo markii la aasaasay maamulka koonfur galbeed waxa uuna ka mid ahaa xubnihii la soo shaqeeyay Shariif Xasan Sheekh Aadan sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxa uu magacaabay wasiiradan ayaa ka mid ah Ilyas Saciid Cali Qalinle waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada Suleebaan Shuceeb Cali oo loo yaqaan Salmaan waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka xeerkan wuxuu dhaqan gali doonaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen dowladda Soomaaliya ayaa hawada Somaliland ka celisay diyaarad sida qaasdaas oo laga lahay dalka Kenya Nuno Xuseen Sheekh ayaa ka waramay mar kale xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta hawada magaalada Hargeysa ka celisay diyaarad sideeqaad miirowga Kenya taas oo doonaysay inay ka degto garoonka diyaaradaha Hargeysa ee Cigaal International
diyaaradda oo u rarnayd ganacsato reer Somaliland ah ayaa dib ugu laabatay dalka Kenya waxayna ka degtay garoonka diyaaradaha magaalada Wajeer oo sida la sheegay markii horeba ay ka soo kacday. Diyaaraddan qaadka ka soo qaaday dalka Kenya ee maanta laga celiyay hawada Hargeysa ayaa ku soo beegmaysa xilli uu yaraaday qaadkii Somaliland ka soo gali jiray dhanka dalka Itoobiya sababo la xiriira qalalaasaha ka socda gudaha dalkaasi Itoobiya. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa waxa uu xaqiijiyay jiritaanka warkan waxaana uu sheegay in wasaaraddiisa ay arrintaasi go'aan ka soo saari doonto dhowaan. Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay dhowaan shaacisay in hawada Soomaaliya dib loo furi doono 5 bisha oo ku beegan maalinka Axadda ee toddobaadkan. Arrinkan ayaana waxa uu jabinayay warkii ka soo baxay xukuumadda ee ku aadanaa xilliga hawada Soomaaliya dib loo furayo. Somaliland ayaa inta badan waxa ay ku doodaa in ay u madax bannaan tahay inay maamulato hawadeeda, balse guud ahaan hawada ayaa waxaa xukunta dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo xarunta lagu xukuumanayo ku taalo magaalada caasimadda ee Muqdisho, taas oo madaxda Somaliland qodobadii ay ka soo jeediyeen shirkii Djibouti ay qayb ka ahayd oo ay tibaaxayeen in loo soo wareejiyo hawada Somaliland si ay iyagu u maamushaan Hargeysana ay u noqoto xarunta laga maamulo hawada Somaliland Soomaaliyana goonideeda ay ugu madax banaanaato. daawadayaal wararka dheeraadkana waxaa ka mid ah maamulka Somaliland ayaa ka jawaabay digniintii Shiinaha ee ku aadanaa in aysan xiriir la yeelan karin Taiwan oo qaar ka mid ah madaxda caalamka ay dawlad u aqoonsan yihiin. dhowaan xiriir ay la yeelatay Somaliland Taiwan ayayna China hadalkaasi ka soo saartay. Somaliland waxa ay sheegtay in muddo uu socday xiriirka Somaliland iyo Taiwan oo labaduba Soomaaliya iyo Shiinaha dawladaha ka jira ay aaminsan yihiin in ay dhulkooda iyo xukunkooda ka mid yihiin. wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Faratoon ayaa sheegay in aysan culays u arag hadalka ka soo baxay safaaradda Shiinaha ee Muqdisho. Shiinaha uma aragno in uu culays yeelanayo, inagana Soomaaliya ayaana tiraahda annaga leh, iyagana Shiinaha ayaa dhaha annaga leh, laakiin labadayaduba waan madax bannaanahay namana quseeyo ayuu yiri wasiir Faratoon. ma qaawana labada dal waa laba dal oo mid waliba dalkiisa leeyahay, dadkiisa leeyahay, dhaqaalihiisa leeyahay, siyaasadiisa leeyahay. dalkan Taiwan sidaa inaad la socotay in kale mooyaane wuxuu ka mid yahay dalalka dhaqaalaha adduunka ugu sareeya. waa wadanka 12aad ee marka laga eego xagga dhaqaalaha ayuu ka mid yahay dalalka 12aad ugu sareeya. 20ka inta ka horeysa 19 18 ayuu kaalinta ayuu ku jiraa xagga dhaqaalaha. waa wadan tiknoolajiyadiisu ay aad u heer sareyso. waa wadan farsamada wax walba samaystay maanta gaaray. marka dal la oran karo laba qaawan isma qaada ma aha, waa dal aan qaawanayna dal isagu dhaqaale. inaguna alxamdulillah ma qaawanin, wax badan baynu kala faa'iideysan karaa. diblomaasiyaddana waxa weeye wax iskaashigana de labadana inagu xidhan tahay. inagu maxay inoogu adkaanaysaa? inagu Taiwan waynu xiriirka Taiwan dalal badan baa aqoonsan, dalal badan bay xiriir la leedahay. United Nations kuma jirto, jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa kuma jirto, laakiin aqoonsiga marka la yiraahdo dalal badan bay aqoonsi ku ugu waaweyn, dhammaan inta ugu waaweyn xiriir iyo aqoonsi ay la leeyihiin Taiwan. inaguna kuwa aynu wadamo yaan leena aqoonsanaaneyn jamciyadda qurumaha kuma jirno, United Nations jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa, laakiin haddana de kuwa aynu xiriir la leenahay baa jira. sidaas un bayna u soo korayaan oo in badan bay inaga horeeyeen, inana aynu maalinteena u soo gaarayna haddayna kaba horeyn. Taiwan iyo Somaliland ayaa isu magacaabay wakiilo cusub oo u kala fadhin doona magaalo madaxyada labadaasi maamul oo aan weli helin wax aqoonsi. markana akhbaaraadka caalamka, wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha guud ee Turkiga ayaa booqasho ku tagay dalka Liibiya. wasiirka difaaca iyo taliyaha ciidamada dalka Turkiga ayaa booqasho aan hore loo shaacin ku tagay caasimadda dalka Liibiya ee Tripoli. mas'uuliyiin ka tirsan dowladda la aqoonsan yahay ee Liibiya ayaa laga soo xigtay in wasiirka gaashaandhigga Turkiga iyo taliyaha guud ee ciidamada Turkiga ay tageen magaalada Tripoli, halkaasi oo ay kula kulmeen madax ka tirsan dowladda Liibiya oo uu u horeeyo ra'iisul wasaaraha
Fayaas Al-Faraj iyo xubno kale. Arrimo ay ka mid yihiin ammaanka iyo xoojinta dagaalka ka dhanka ah sargaalka ka soo horjeeda dowladda ee Generaal Khalifa Haftar ayay ka wada hadleen labada dhinac. Mas'uuliyiinta sare ee Turkiga ayaa sidoo kale booqday furumihii laga soo saaray hogaamiyaha Khalifa Haftar iyo maleeshiyaadkiisa. Warbaahinta Turkiga ayaa sidoo kale xaqiijisay booqashada mas'uuliyiinta ciidamada Turkiga ay ku tageen caasimadda Liibiya waxaana ay micneysay safarka lagu taageerayo Liibiya.